halkani waa buurta libaaxley waa seere kaymeed la sameeyey xilligii ingiriiska waxaana tan iyo muddadaas ay ahayd seere xidhan oo ay dowladdu gacanta ku hayso lagana ilaaliyo wax kastoo faragelina sida xoolaha iyo dadka. buurta libaaxley waxay ku taallaa degmada boone waxaana ay masaafo dhan 75 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan tahay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal. waa dhul qurxoon oo ay ka baxaan dhiroon kala duwan oo leh waxtar badan sida geedka canjeelka loo yaqaano oo caan ku tahay. buuro badan baa jira waddanka Somaliland ama agagaarkan buurahani gobolkan awdal waa buuraley. marka buurtan libaaxley la yidhi waxay ku timiday macnaheega importance ama muhiimadda ay leedahay waxay ku timiday markii uu ingiriisku baadhis ku sameeyey dhirta ka baxda ama ha yaraato dhirta waaweyn dhirta gaaban iyo dhirta dhulka ku goglan noocay doonto ha haato wuxuu ingiriisku sitay liis dhirta ah oo magac geed kasta sinji kasta la yidhaahdo abla-ablaynta waxaa sameeyey niman Swedisha caan bayna noqotay sida loo dirsooco ee loo kala saaro dhirta wax macquula oo loo abtiriyo ayay noqotay. markay sidaa noqotay ka bacdii kolkuu dhulkeenna qabsaday wuxuu muhiimadda saaray bal inuu ka helo dhirtaa adduunka liiskeega uu haysto ee taxanaha ah wax inay ku soo kordhiyaan Somaliland. baadhistii waxay ka heleen daalo gacan libaax iyo libaaxley dhir cusub bay ka heleen. dhirtaa cusub markii ay arkeen inay adduunka wax ku kordhisay waxaa la yidhi ha la ilaaliyo hiddaha cusub ee adduunka ku soo kordhay ha la ilaaliyo. buurta libaaxley sanado badan waxay hooy u ahayd libaaxa waxa loo yaqaanay kaynta libaaxa waxay ahayd meel ay dadku uga caagi jireen libaaxa xoolihii ku ambada ama luma waxay ahaayeen kuwa laga samro waana sababta keentay in buurtaasi loogu magac daro libaaxley. Soomaalidu sidii ay u soo noolayd wax badan oo xayawaan oo dhibaynaya oo dhib u keenaya ayaa fara badnaa. waxaa markii ugu horeysay Soomaalidu waxay yiraahdaan waxaa jira markab buti bahal la yiraahdo biir bahalkan adubi madax kuti batida madax kutida sidii ayaa ku qarraqmay way soo dabaalatay bariga u soo baxday buurahan bay soo fuushay buti baa dishay baa loo oran jiray ama madax kuti dadku siday ula dagaalamayeen way tirtireen iyadii. waxaa ka dambeeyey waxaa halista libaax marka halkan hooy bay u ahayd libaaxa oo meeshan aan taaganeen isku waraysanayno waxaa la yidhaahdaa kaynta libaaxa waa halka hooyga u ahayd. dhagaxa halkaa inaga xiga bidixdeenna aan waxa kolkan xaggan u soo jeedo bidixda iga xiga iyo dhagaxa midigta iga xiga labadaa dhagaxba waxaa la odhan jiray libaax fuulada. waxay ka ilaalin jireen sida satellite-yada wixii xayawaan iyo dad soconaya ayay halkaa ka arki jireen ilaa guban. marka halkaasaa ataaga laga bilaabayaa waa 4 libaax fuul baa la yidhaa 4 libaax fuul ayaa la yidhaahdaa. taasi waa ka mid halkaa ka soo jeedi tani waa ka mid tanna waa ka mid mid kaloo halkaa ka dambaysa baa jira. afartaas libaaxu surveillance wuxuu ka eegaya sida raadaarka waxa uu doonayo inuu cuno geel lo ari dad cadow ku soo socda halkaasuu yuu joogaa. marka libaaxa ayay hooy u noqotay waxa loo yidhi libaaxley.
buurta libaaxley ayaa la gaara dhiroon kala duwan waxaanay caan ku tahay cawska gargoorka loo yaqaan oo ay aad u jeceshahay lodu xilliyadii aanay dowladdu gacanta ku hayn buurtan iyo nawaaxigeedu waxay ahayd meel kulmisa xoolo badan oo iskaga kala yimaada deegaano kala duwan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland iyadoo ka duuleysa qiimaha dhulkaymeedkan u leeyahay qaranka waxay sanadkii 2023 dib ugu soo celisay gacanta dowladda iyadoo seerahan dib loo xiray waxa laga saaray dhammaan dadkii deganaa waxa laga howlgeliyay 12 shaqaalaha oo ilaaliya waxa wasaaradda iyo dadka deegaanku ay isla garteen in seerahaasi xidhnaado sanadka oo dhan haddii aanay iman duruuf keentay in la furo meeshan seerihii libaaxley Ingiriiska asaasay hayd qarankuna gacanta ku hayay intaa ka bacdi waxay ahayd meeshu seerihiina mar buu dumay deetana waa la sii daayay dameeraha iyo xoolaha daaqi jiray 2 sano ka hor ayaanu soo celinay waan xidhnay 12 shaqaalaanu u qabanay ilaahay uu nagu asturay maanta quruxiisa waadiga arkaya waanu sii wadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaanu ku sii wadi doonaa insha Allah kolba maanta waxaanu sameynay nursery baanu ka aasaasnay xaruntii kobcinta dhirta oo libaaxley ku yaala waxaanu ka sameynay sanadkii u dambeeyaanu sameynay haddana inaanu waxyaalo kale ku darno ama dhismayaal iyo waxa seeruhuna uu noqdo seeraha gobolka ama qaranka ugu weyn halkan waxa la yiraahdaa buurta libaaxley meeshan libaax baa la yiraahdaa libaaxa galayay kadib waxa weeye looba ku noolaan jirtay iyo libaax kayntan lama arki jirin oo waxa ka gal lama arkin waa laga hadhay bahala ku noolaa waa weyn oo iyaguna geedahan la eego inta lihiin aad yaabto wixii waa way doorsamay kol geedihii la gooyay geedaha waa la gooyn jiray oo gamba laga dhig jiray waa la qaawin jiray waa kuwa maanta soo noqonaya waa kuwa imanaya waxaana jira anagu dhulkan markaan ilaahay dana keenay dadka waan ka in badan ka weynaa geeday ku yaallay halkan oo maanta jirin baa jira geedka haadanta la ilaa kamida ajirsaha kamida shayda kamida cobolka kamida mooliga kamida anjeelka kamida sigibta kamida ee kada waa wax geedihii ugu muhiimsanaa weeyaan waxba ka sii yar nool qaar wayba tafirgo enba haadaanto kaliya wayba ka tafirgo dhulkan wuxuu ahaan jiray dhul buuxa 4 saacadood buuxa halkan waxaa ilaalin jiray 9 nin ayaa ilaalin jiray waqtigii Ingiriiskii intii Somaliland ay samaysatay waxa la isku dayay in la soo celiyo xooluhu ma geli jirin xooluhu qoobkooga ayaa waxay qodaan dhulka xididkay soo saaraan way rujiyaan way xaalufiyaan xooluhu ma soo golay marka xooluhu hadday soo galaan dhulka ayay nabaad guurinayaan marka waxa ku dhacday nabaad guur geedaha ka qalalsan ee arkaysid ka kale qalalsan waxa qalalsan ee geedaha arkaysid waxa weeye waa geedka la yiraahdo dayib bariga looga yaqaan halkan waxa looga yaqaanaa sigib baa looga yaqaanaa waa dhirta dhismaha ee looxa waa redwood waa looxa cas waa qaali adduunka inkastoo cawlan yahay imika dusha marka la jeexo hoostiisa waxay noqonayaa casaan waa looxa ugu qaalisan adduunka ayaa laga helaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2023 buurta libaaxley waxay noqotay goob aad u qurxoon oo maalinba xigta la soo noqonaysa quruxdii iyo haybadii ay mar lahayn jirtay sababtu waa markii gacanta dawladda dib loogu soo celiyay lana xiray oo laga ilaaliyay dhaqdhaqaaqa bini'aadamka iyo xoolaha arintaasi oo ay si aad u soo dhaweeyeen dadka deegaanku sidoo kale waxa la qabtay waxa kamid ah xidhxidhkii ama waxa la yiraahdaa environmental council amaba gal erosion baa la yiraahdaa dhul go'a ku dhacay iyaan xidhxidhnay biyaha markaanu joojinay biyihii filtration uu keenaya carra guurkii ama waxa la yiraahdaa nabaad guurkii ee yaraanaya xidhxidh baanu qabanay nursery baanu ka aasaasnay waxaanu ka sameynay ilaalo joogto ah oo 2 sano qaadatay dadaalkaas oo dhan ee wasaaraddu iyo dakhliga ay hawsha ay gelisay waxay keentay in maanta mid saan u eg uu noqdo aad iyo aad baan hawshaas ay ahayd mid aad u adag runtii la qabsigeega iyo maamulkeega iyo habeen iyo maalinba dawaanu wada socod odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyo aad iyo aad ugu mahad celinaya ma sha Allah Cabdi Casiis Ciidin Cilmi iyo Cabdi Fataax Usmaan warbaahinta qaranka buurta libaaxley